السلام عليكم كسو دوادا سهل سوفتوير waxaad nagala soo xiriiri kartaan sahalsoftware.com taxanahan waxaan ku baran doonaa barashada cilmiga networking-ka annagoo si khaas ah ugu eegi doona CCNA ama Cisco Certified Network Associate anigoo engineer Abyad ah ayaa idin la socodsiin doona kana mid ah hawlwadeenada Sahal Software. haddaba qaybtan waxaan ku baran doonaa wax la yiraahdo VLANs ama si kale marka loo dhaho virtual LAN. marka virtual LAN wax kala ma aha faa'iidadu inoo keenayo waxa weeye waxaan ognahay switchkii halkii switch wuxuu leeyahay by default hal VLAN by default wuxuu leeyahay hal LAN ama hal VLAN si ka hadaan dhahno marka kaana waxa la yiraahdaa VLAN 1 switchyada sida guud 24 god haduu leeyahay 24 godba waxa weeye VLAN 1 bay asan garaysan yihiin يعني VLAN 1 maxaa weeye 24 ka god fi wixii gala oo isla wada xiriir karaan hal broadcast domain bay leeyihiin oo qaabkaas ku shaqeynayaan one broadcast domain yani kii mid laga diro inta kale wada gaaraysa yani port 1 yani ama portigaas wixii laga diro packet-kii laga soo diro wuxuu aadayaa dhamaan portiyada kale sababtoo ah waa one broadcast waa hal network oo hal IP leh marka waxa jira kabasokow hadda waxaad joogtaa ka soo qaad shirkad baad joogtaa department-iganu waa tii finance-ga ka soo qaad marka finance-gii waxa u yaala switch waxa lagu yiri maalinta dambe waxa jirta department management yiraahdo oo 10 qof oo kale ah oo network kala marka tii hore midna ka soo qaad waxaan siinay 192.5.0 network-gaas ayay isticmaalaan oo /24 ah macnaha /24 waxay ka dhigan tahay subnet-ka qaabku yahay 255.255.255.0 iyo dhibic 0 yani /24 marka network-gaas ayaad haysatay waxa lagu yiri network-ka finance-gaas kale maalin dambe waxa la soo kordhiyay department kale oo la yiraahdo management marka department management IP ka duwan bay rabtaa kii hore mesela meesha 5 ay tahay 6 baa la rabaa inay ka dhigto iyo network kala duwanaado marka sababta loo kala duwaa maxay finance waxyaabo gaar ah oo share gareynayaan baa jira managementina waxyaabo top ah oo iyaga secret u ah oo folder gaar ah share gareystaan baa jira si gaar ah wax share gareystaan baa jira waxyaabo gaar ah oo managementiga u xiran baa jira finance u xirnay sidaa darteed baad yani waxa u baahan tahay managementigiina inaad hadana switch kale u soo gadid switch kale aad meel ugu xirtid oo managementiga ah okay hadana maalinta waxa lagu yiri department kale oo waxa la yiraahdo IT baa soo baxday marka department IT ah marka ayadana waxa la rabaa ina meesha 6 ay ahayd aad 7 ka dhigtid oo macnaha ID kale oo network kale oo saddexaad weey marka tan maxay noqonaysaa in aad u samaysid switch kale u soo gadid marka meeqa switch soo gatay saddex switch ba soo gatay midalan ka soo qaad kan 2000 ama 1000 oo kale laga soo siiyay 2000 3000 iyo wixii lamid laga soo siiyay marka halka shirkadii lacag aad badan baa ka gashay 6000 baa ka gashay waxaan laga yaabaa shaqada dhan inaad ku qaban kartid midkan 2000 adoo iska faa'iideysanaya waxa la yiraahdo VLAN marka waxa weeye VLAN ku wax kala ma aha switchkii aad haysatay ayaa waxa uu kala qaybinaysaa saddexdii network waa kala qaybinaysaa marka network 1 oo IT ah network 2 oo management ah iyo network 3 oo ah waxa la yiraahdo finance saddexaas marka kala qaybinaysaa oo marka boortiyada 24 ka ahaa ka soo qaad kana waxa siisay 8 tana waxa siisay 8 tana waxa siisay 8 marka yani saasa uu kala qaybisay marka waxa haystaa saddex network hawshii saddexda switch ay ku qaban lahaayeen halka switch baa ku qabanaya sidoo kale bay ku noqonaysaa oo waxba isma bedelayaan network-ga mid kasta gaarkiisa u shaqeynaya laakiin inay isla xiriiraan waxa loo baahan yahay router inuu yaalo meesha tan baa loo baahan yahay network-ga hadii loo baahdo inay isla xiriiraan laakiin waxa jirta waxa la yiraahdo layer 3 switch layer 3 awood u leh inay shaqadii routing-ka qabtaan ama router-ka oo marka saddexdan hadii loo baahdo in si gaar ah isku xiriiraan oo isla xiriiri karaan laakiin muhiimaddu waxa weeye VLAN-ku inaan faahno inaan saa u kala qeexanay marka faa'iidooyinka kale u leeyahay waxa kamid ah xitaa security ahaan waxa la yiraahdo hadda faa'iidada waan garanay in resource ahaantii meeshaan saddex switch soo gadan lahayn aan hal switch ku sameyn karnaa hawshaas oo dhan faa'iidada kale u leeyahay waxa weeye security ahaan network-gan wixii virus oo ku dhaca iyo wareer network-gan kale oo ma gudbayo oo ma soo gaaray sababta broadcast-go dhan waxa jira
routerka marka ma soo dhaafayo marna ma soo dhaafayo dhinacaas halkaas uu ku ekaanaya waxa la wixii problem u dhaco marka VLAN ku qaab ahaan taas u shaqeeyaa marka aan bal isla aragno labkii aan isla aragno waa hagaag hadaba qaybtan marka waxaan soo qaadanaynaa saddex switch waan soo qaadanaynaa saddexda switch siyaabo kale uga faa'iideysan doonaa halka kan aan soo dhigano midkan kana halka aan dhigano waa yahay marka u fiirso hadaba saddex waxaan u baahanahay meesha tan saddex yaani department finance IT iyo waxaan soo qaadanaynaa waa finance waa IT waxaan kala soo qaadanaynaa engineering marka saddexdaas department ayaan soo qaadanaynaa marka saddexdaas maadaama saddexna toogeen de saddex waxay noqonaysaa switch ina u soo geedid meesha saddex switch soo gadan lahayn baan switchkan koobaad ma garanaysaa waxaan ku qabanaynaa dhammaan hawshii oo dhan oo switch sira ah marka 24 god baan u kala qaybaynaa marka shaqada koobaad ee laga rabo waxa weeye inaan abuurno VLAN-ki inaan abuurno waa shaqada koobaad shaqada labaad waxaana laga rabaa in aan assign boardiyada inaan assign gareyno oo yaani de boardkigaas aan dhahno idigu VLAN 1 ba ka tirsantahay ama 2 ba ka tirsantahay ama finance ka tirsantahay ama engineering marka qaab ahaan noocaas aan isticmaali doonaa waayahay hadaba marka aan soo qaadano computer halka kan ah computerkaas waxaan ugu talagalnay labadan computer waxaan ugu talagalnay finance labadan computerna waxaan ugu talagalnay engineering labadan computerna waxaan ugu talagalnay waxa la yiraahdo IT marka halka kan aan soo qaadano aan halkaan imaano kan aan ku soo xirno waxaan ku xiraynaa 1 kana waxa ku xirtaa all right 1 labadaas 1 waan ku xirnay soo iyo 2 marka waxaan soo qaadanay cable-ka noocaan qaadano ma aha nooca straight through la yiraahdaa sida la socotaan straight through wal raba cable-ka marka straight through kana way aan soo qaadano aan kan ku xirno fast ethernet 1 kana waxaan ku xiraynaa fast ethernet 2 kana waxaan ku soo xiraynaa maadaama rabna VLAN 1 ama finance aan rabna inaan siino ilaa iyo 10 marka kan waxaan ka bilaabaynaa ilaa iyo 11 marka 11 godka 12 baan ka xirnaa kana godka 20 ka bilow iyo wixii ka sareeyaan ku xiraynaa godka 20aad 21 ka bilow kana sidoo kale 22 marka u fiirso waxaan rabnaa in finance-ga godka koobaad ilaa iyo godka 10aad ee switch-ka aan waasay gareyno IT-ga waxaan rabnaa godka 11aad ilaa iyo godka 20aad tan waxaan rabnaa inaan waasay gareyno 20 iyo 1 wixii ka sareeya ilaa iyo 24 markaasaan rabnaa inaan ugu assign gareyno oo VLAN-adina marka hore VLAN-ka abuurayna marka labaad boortiyada aan kala assign gareynaa switch-kan saa la socotid wuxuu leeyahay 24 god buu leeyahay marka sidoo kale aan gelino IP-yadii localka ahaa waataan dhahnay kan waxaan siinaynaa IP computerka koobaad oo ka tirsan waxa la yiraahdaa finance waxaan sameeynaa 192.168.1.2 baan siinaynaa oo 1.2 kana waxaan siinaynaa 1.3 meesha ugu dambaysa way kala duwan yihiin 192.168.1.3 hoosii kala duwan yihiin marka kuwan waxaan siinay waxa la yiraahdo halka kan aan soo qaadano kaadi all right kan way halkaan waxaan siinay saad la socotid qaybtan waxaan siinay waxa la yiraahdo waxaan siinay 1.2 iyo 1.1 1.3 iyo 1.3 yes halkaan ku kala calaamadsano 1.1 iyo 1.3 way qaybtan aan ibaano waxaan leenahay network kala weeye maadaama yihiin IT-gi waxaan leenahay 192.168
2.1 2.1 aan ka dhigno 1 kaas aan ka dhigno 2.2 iyo 2.3 waa 192.168 2.3 okay labadaana waxaan u bixinaynaa network waxaan gelinaynaa 3 network ah network 3 192.168 3.2 aan dhahno kan maadaama kii shisho yahay kana waa 192.168 3.2 marka intaanu waxay isku yihiin qaybtaanu waa 3 networkan waa 3.0 networkan kale halkaan uga jeedid waa 2.0 kana waa 1.0 marka halkaan afan ku noqono waa 1.2 way okay inay isbiin gareyn karaan afirino inay isbiin gareyn karaan hadaba aan aragno waa yahay comparament aan soo furano bing 192.168 1.2 ma bing gareyn kartaa 2 waa asaga moogta marka 1.3 uu bing gareyn karaa haye all right kana hadaba aanu imaano 2.2 bing 192.168 2.2 waa bing gareyn karaa 2.3 na bing gareyn karaa marka hadda la joogtaan ma kala xirno network ma kala xirno halkaan aan ku noqono 1.2 soo bing gareyn karaan waa yahay marka hadda saa la socotid dhibka jira wuxuu yahay saddex hadda baan kala qaybinay marka saddex hadaan kala qaybinay hadda ma garanayo yani fiilada switch kan halkaan inoo yaala waxa laga yaabaa hal network inuu soo galo hal network markuu soo galo kuwan ogow hadhow kuma shaqeynayaan sababtoo ah hadda waxa isbiin gareynaya local koodi kaliya laakiin waxba kuma shaqeynayaan wax allaala wax uu shaqeynaya male sababtoo ah ma jirto wax kala xadidaya hal fiilo mesela internet kaaga imaanaysa oo wuxun ah 193 markaa gelisid kuwan oo dhan waxay ku shaqeynayaan kulligood 193 bay ku shaqeynayaan haddaan fiirino switchka gudihiisa galno oo switchka kan aan fiirino enable show VLAN haddaan dhahno waxa u jeedaa wax oo dhan waxa weeye VLAN 1 weeye marka mid kasta waa iska VLAN 1 ma kala goono oo broadcastigoodu waa kala duwan yihiin marka saa u jeedid waxaan rabnaa marka inaan kala qaybino oo aan dhahno kaas VLAN 1 weeye kana waa VLAN 2 marka haddii xataa fiilada la isku soo qaldo oo computerkan mesela inta la soo qaldo halkaan la keeno VLAN 1 buu automatically noqonaya haddii dhinacaan la keeno VLAN 3 buu noqonaya yani VLAN 2 3 saasi kala noqonaya haddii halkaan la geeyo 1 marka 1 waan iska daynaa maadaama kan defaultiga yahay marka shaqada inoogu horeysa waxa weeye maadaama computerada hadda ay biyadii siinay inaan VLAN-kii abuurno halkaan aan tagaynaa waxaan leenahay configuration terminal waxaan leenahay VLAN 10 VLAN koowaad marka name kan waxaan bixinaynaa finance haddana waxaan exit baan leenahay waxaan leenahay VLAN 20 waxaan leenahay name waxaan leenahay IT أنا أسود الجنة ونغربها يعني أسود الجنة أوكي هذا واحد لنا أكيد هذا هلك شغلنا وكوري كرتا عاديا واحد لنا كرتا فيلان تاتي فيلان كشطنا فيلان كله بربوخا ورما نيم أقوم بكبر وضعمتك وقوري إنجنيري أوكي أكيد هلك هذا شو مركب واحد هذا شو فيلان بالفيلان هذا كواور هذا فيلان وكده فاينانس إنجنيرين إيو IT بكواور لكن godna kuma active kareysna hadda no godadkii oo dhan VLAN 1 bay ku jiraan marka taana waa problem taana waa dib weyn weeye waaya marka aan isla fiirino hadda u fiirso halka kan marka waxaan sameeynayaa intaan marka VLAN-ka u gudbin baan waxaan rabaa inaan tuso kuwan IP-yada un baan kala computerradan hoose hal mar intaan ku noqdo halka kan computerradan ku noqdo هذا كان وجهه أو تري بنقلنا سما تري هذا من قلنا أي بيجان قلنا تري أموكته درت درت بنقلين كرين كله
1.2 ما بين قرين كريم مكتب لكن أفرسو هدان أي بيجا بدلنا عندنا 1.5 عندنا 1.5 هدان عندنا هذا أنكو علينا وبين قرين كرا هذا أفرسو حجيبه كتير قدكو كتيره ولا واتني لو وحنا بين قرين ياكن مركا يعني waxay mada mala switch ku waa hal switch on waa hal VLAN asagoo dhan IP ga aan kala duunay kaliya waxaan ka soo wataa 10ka dambe oo soo socda laakiin switchki hadda waa hal VLAN laakiin hadda waxa dhici doonta markaan kala qaybino kan xataa hadaan si kasta u siino IP ga kaas marna ma been gareyn karo hadda kan iyo kan waa isku IP baan ka dhignay oo 1.5 baan siinay marka aan ku calino 3 dhibic maxaa la yiraahdaa ama sidaas u diinayna hadda waan ku tusi doonaa isma been gareyn karaan way هذا مركب ما دام أن configuration كنا قلنا ما دام فيلان هذه سميتنا يصدق فيلان وانو أبورين بورتين أو أصلاً قرينا بس بين دائما مركب هلا هاي interface fast interface أي أنتي ودي كرنا interface fast ethernet واي وحلنا هاي 01 هيه مركب وحلنا هاي switch mode أرتو access إن كدقنا garanaysa maadaama computerna ugu xiran yihiin halkaas yani access waxa weeye mode ku waa maxay mode ku inoo muujiya godku yani switchku waa saddex baa la dhihi karaa saddex mode buu noqdaa godka yani switch boardiga godka switch mar waa taranki oo waa marka ama switch kala ku xirmayo ama uu ku xirmayo router marna waxa weeye access oo marka computer uu ku xirmayo marna waa dynamic oo wixii ku xirma buu garanayaa markaas aad darteed ba access u dhaanayo maadaama computer ku xirmay hadhow hadii xataa wax la mid lagu xiro ma aqbalayo maadaama access yahay ma aqbalayo marka waxaan leenahay switch mode access marka waxaan leenahay hadana switch board access VLAN 10 VLAN-kii ugu horeeyay ayaan kan siin marka hadda u fiirsa hadda halkeen ana ku joogno waxaan dhihi karnaa do show VLAN do waxa way igu qasab weey adoo halka joogo show VLAN waa ogtahay privilege mode-ka ayaa laga isticmaalaa global mode-ka laga isticmaalo هذا global mode بان جوجنا لكن ساسو اي تاي دو هدان كورمنا نو شقينس marka hadoo firto finance maxaa soo galay xabadii kood ba soo gashay marka qaabkaas oo soo gelin kartaa yani VLAN-ka godka ugu asan garan kartaa qaab kale oo ka fudud baa jira oo meeshan aan marka interface dhahno waxaan leenahay range fast ethernet 02 ilaa iyo 10 garanaysa saasan dhaynaa fast internet FA waa taas oo qabsan kartaa dib maaha switch mode access marka hadana waxaan leenahay switch board access VLAN 10 marka halka hadaan joogno do show VLAN hadaan dhahno automatically waxaad fahmaysaa in finance ilaa iyo 10 godadka 1 ka bilowda ilaa iyo 10 finance baan siinay haddaba godadka ku xiga ayaa IT department siinayna oo كويس قبل عمانية مركا أيها وحنا إيماننا هذا كان على أي range maadaama sidii range loogu daran aragnay fast ethernet 011 ilaa iyo 20 switch mode access oo computer baa ku xirmanaya access yani waa access computer baa ku xirmanaya iyo server iyo wax la mid ah switch board access VLAN 20C way yani VLAN 20 waa sangar hadda hadaan do show VLAN waxaan arkaynaa in department IT godkiina ogow VLAN 1kii aad u jeeday default-ga waa ka soo yaraanayaan labadaas baa ku aray way hadaba tii ugu dambeysay aan dhiman waxaan leenahay IT range fast ethernet 021 ilaa iyo 24 switch mode access VLAN switch access VLAN VLAN kaasi waa tan garay marka hadaan dhaano do show VLAN waxa arkaysaa engineering-kii maxaa ku soo wareegay 21 22 23 24 waa engineering marka saas u kala shaqeynaysaa marka ogow exit baa dhihaysaa marka ka baxaysid oo wartina level-kii hoose ugu gudubtid exit marka u fiirsa halka markaan joogno privilege-ka meesha ugu hooseysa show VLAN markaan dhaano waxaan arkaynaa show VLAN markaan dhaano yani waxaan arkaynaa in kan waa san gareysan yahay kana IT department tahay tana finance tahay
يعني صدح دي بوا وكلا أسنجرسين مركا هالكا show VLAN هالكا أنا عاديا لقى هي show IP interface brief إنا عرقنا جدود active كاي داون يا أبي كوا سمرنا قيفت داون كا يا قيفت أب كا واي هذا مركا وجدا show VLAN مركا دهنو VLAN دي تاس أو كلا قيبنا مركا أنت كمل كنت جرتها الVLAN إصلاح أو إصلاح حريري كرتا مركا هذا وأوفيرسو كان قد كيف كتيره 22 كان محو كتيره اوكي halka marka isleemaan intaan waa isku fiilan labadan waa isku fiilan waa 1.2 1.3 aha been gareeyo waa been gareyn karaa kana 1.3 na 1.2 waa been gareyn karaa been 192 168 1.2 waa been gareyn karaa laakiin u fiirka halkan waxa dhaca kuwan wadanku 1.5 waa taan gelinay ay biga halkan 1.5 baan gelinay inuu been gareeyaa rabay Soma hadaba inuu been gareeyaa isla aragno 1.2 ma been gareyn karo hada isweydii ay bina weeyeen muxuu ku diiday isku ay bina weeyeen isku ay bi yani wuxuu finance uu la ay bi yahay laakiin isagu engineer mu ka tirsan yahay request time aad soo qorayaa marka ma shaqeynaya sababtoo ah godku ku jiro ayaa wuxuu u aasaan gareysan yahay VLAN tedi marka only wuxuu ku shaqeyn karaa IP gan kale IP gan kale oo yani 3.2 ah hadaan dhahno hadda IP ka bedelno 3.3 ka dhigno 3.3 aan been gareyna markaas waa yahay 3.3 marka 3.1 2 and down 3.2 waa been gareyn karaa oo kiisa kala saaxiibkiisa 3.2 oo kan ah na saaxiibkiisa 3.3 wuu been gareyn karaa 192.68 3.3 way been gareyn karaan laakiin VLAN kala ma been gareyn karaan VLAN kale inay been gareeyaan sida 2 iyo wixii la mid ah IP-ga 2.3 oo kale inay been gareeyaan waxay u baahan yihiin router inay maraan been 192.168 3.2 ma been gareyn karaan hatta IP-ga ka bedelno ma been gareyn karo waa si hadda inta shay sababtoo ah isku VLAN ma marka ujeedada VLAN ku waa sidaas ujeedada VLAN ku marka caadiyan marka qaab ahaan waa intaas saas isku la shaqeeyaan waxa loo tagay network in loo kala xadido oo de network uu kala xadidmaya number 2 waxa meesha ku jira oo kale waxa la yiraahdo de network broadcasting waa inoo kala go'ay hadda 3 broadcasting waa inoo sameysmaya access kiina waa inoo kala xadidmaya de network kiina maaragtay meesha dhowr switch soo gadan lahayn 3 switch hal switch baan u kala qaabeyn karnaa wax oo dhan oo saasan u isticmaaleynaa marka aad baad ma haysantiin 10 intaas u keegyahay السلام عليكم